سجال جير أنا قال أنا سجال جير إله بابين على سجال جير بنكون آخر كي واحد اللي قال مهتسني تقول إيش تسده ولا خزيان بدن العقد لبح ولبح حضات كفى إذا سوى سنة مع ميلك كوكو حاجة فرح سنبا لوغا فائدين يا بل إلى آخر قرالك إله بانكو قد أرشي محا يهرس حين يهيجي باللغات دور إيو 10 سنة وحين كنت عبي بحالك لسيسيتا وعمانا كما قبكر شركة هرمود مين كأهين مسؤول مين قادنين لليشاس hadday soo baxday abkaas ee indhaha saartay oo ka madax bannaan yahow yahay wax mukhtalifa sharciga aan waafaqsanayn been abuur ah inay nooga digta mayna ahayn salaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada saaxiibayaal dunida daafeeda meel walbaad ka joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad caawa waxay inoo saaran tahay shirkadda hormuud war Soomaaliya inoo kala qarqaada haddaan qaldanahay boodkaygu la tonta yaan lay arxamin hadday hormuud aan ku saxanahay waxyaabaha maanta aynu ku haysano dad badan baan qalbigooda ka hadlaya oo fariin ka sida boqolaal baan fariin ka sida malaayiin Soomaaliyan ka sida wallahi waynu jabnay hormuud way nagu tumatay xuquuqdayna ku tumatay taynay bini'aadanimo ku tumatay taynay muwaadinimo ku tumatay sababta ay sheegayaan hal qodob baynu ku dhaleeli jirnaa awal waynu ognahay meesha la yiraahdo magaalada Muqdisho khaas ahaan inta badan waxa loo xamaal tagaa shirkadda hormuud shirkad hoostag farac kamid ah hoostag oo la yiraahdo alburuj oo dhismaha ka shaqeyso jilac iyo jireer dhalinyarada Soomaaliyeed ee sharafta leh way hoostagan wixii ka shaqeystaan shirkadaas ay dhismaha u qaabilsan awal Soomaalidu nina waa qada jira nina waa quudi jira weligeedba waxa la sameeyay jiray qofku subaxdii iska bixi jiray qof inuu yeedha dheh jiray haya shaqan haysta ma jirta xamar kama shaqeysan kartay hadda buruj baad hoostagaysaa kow shacabkii bay afduubat labo waxay sameynaysaa haddaan eragaas been ka sheegayo muwaadin Muqdisho joogta shirkadda buruj marna xogogaal baad u tahay amaba waad u shaqaysaa haddaan been qalad ka galo dambiga aniga qorta liisu waad shaqaynaysaa kow waxay ku leedahay shirkaddu markaad subaxdii aad shaqo tagto hal isbuuc bay lacagtu maqnaanaysaa isbuuc ka bacdi laba isbuuc markay dhamaato hal isbuuc lacagta lagu siinaa isbuucna wuu ka awlayaa waa shuruud qofkii nolol uu rabaa inuu wadada sii maro soo maro rabaa waa dad wax noola ka dambeeya reer buu u soo shaqo tagay hadduu intaa isbixi kara maba u kaceynba dhibaatadaas horta way jirtaa waa qodob asoo 2 bilood shaqaynaya baa dhowr maalmood buu qaadanaya bil iyo barna way ka maqanta waxa la leeyahay lagu handadayaa shirkadu lacagtii laga ma soo qaadin mas'uulkii baa dhahay shaqo geli shirkadda lacagta laga ma soo qaadin balse fiican u dhageysta shirkadda lacagta laga ma soo qaadin oo lacag ma hayo meelo dacwoodo ma yaqaan kaaba shaqaale shaqada ku dirsada shaqo ka doonay ilaa shirkadda hadduu tago meel loogu xiriirin male kow dhalinya horta dhiigga shacabka masaakiinta ah ee dhalinyarada halkaas lagu cabaa waa qodob awal aleeshaas kaliyahan qabnay wallahi ma aan taasoo farac yar bay ahdo shirkadda weyne awal qeyl bay hel lahayd hadda ayay dhulkana la jirtay mustaqbalka inaan ku ciyaarno tusaalo shalay waxa hawada soo galay shirkad horta sideedaba waynu aragnaa anagu qurbanacskana ku soo wareerna shirkad waan naqaanaa shirkad markay awoodda inta laga leedahay hantiga inta laga dakhliga inta laga leedahay iyo awooddaas leedahay ciidanka leedahay kaabahaas ay leedahay waxa loo baahan yahay hawada ka adag tahay iyada la soo mara hawada iyada kaliya ka shaqeysa waa in hawada ka adag tahay ab in la hayno hawada una soo galin shacabka aan lama jahwareerin matalan bini aadan baa leeyahay inaysa awoodeedu ka yar tahay baa laga yaabaa laakiin duruufo ay jiraan ay ku soo bandhigi karin waxyaabaha qaladaadka ay dhacay waa inay shacabku ugu digto ay tiraahdaa anagu malihin arrinkaas abka shalay subaxdii habeen horo la soo sheergareynay ee shalay dhan lagu dhex jiray ee la falaaqeynay ee dadka qaarkood ay ku qatalmeen anagu aan qodobka kow lambarka koobaad aan ka ah dadkayna aan wax baran lambarka koobaad aynu ka nahay gmail-adayna oo dhammaystiran lagu la wareegay facebook-yadayna lagu la wareegay akoonnadayna lagu la wareegay saakay baa waxa ka hadlay Master Sola maxaa ka qoseeya shirkadda hormuud waxba kama qoseen laakiin annaga ayuu inoo naxayaa jir bini aadam ayaa ku taala shirkadda buruj way aragtaa inuu wareegayo loogadeeda iyo wareegayso way aragtaa ma ka hadashay ka digtoonaada mayna tiri xaq wixii u leedahay maadaama macmiisha aynu nahay muwaadiniinta aynu nahay
annaga ay maaragtay ayna hoos joogto shacabkeeda aynu nahay waa in loogada markay soo baxdaaba haddayna waxba ka qaban karin hawada inay ka saari karin ay uga degtaa shacabkay soo saartaa war murtiyeed ay baraha bulshada la wadaagtaa mayna ahayn kor la isku dhiiqday wixii 9 jeer aan galay anigu 9 jeer ilaah baa beencay 9 jeer baan ku noqday aakhirkii waxa la gaaray mahadsanid waad guuleysatay sida ugu dhaqsiyaa badan lacagta ula bax haddaad ka faa'iideyso waysana macmiilka kugu xigaa faraxsan baa looga faa'iideynaya bal ila akhri qoraalka ilaah baan kugu dhaarshay maxaa ii harsan xiliyahaygii baa la qaatay dhowr iyo 10 sano waxaan ku tacbay baa halka la sii sitaa waxba kama qaban karo shirkadda hormuud mayna ka ahayn mas'uul mayna qaadanayn dhaliishaas hadday soo baxday abkaas ee indhaha saartay oo ka madax bannaan yahay wax mukhtalif ah sharciga aan waafaqsanayn ee been abuur ah inay nooga digta mayna ahayn isweydii oo iiga jawaab asxaabtaadana la wadaag inoo kala garqaad aniga iyo shirkadda hormuud salaamu calaykum waraxmatullah